السلام عليكم daawadayaal kusoo dhawaada channelka maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo sonkorta dhiigaaga ku badata iyo siyaalaha isaga difaaci lahayd waxay diabetic dadka qaarkiis u yaqaanaa waxaan ka hadlayaa diabetic mellitus type 2 sonkorta type 2 ah oo dadka waaweyn ku dhacda baan ka hadlayaa sonkorta type 2 waa sonkorta kor kuugu badatay oo normalka loogu talagalay ka badatay waxay ku dhacdaa dadka waaweyn bay badanaaba ku dhacdaa waxay ka kacdaa cuntada maxaad marka aad lagu controlaa ama aad ku controli kadhaa sonkortu dawo ma lahan sonkortu dawo ma lahan laakiin waxyaalo waxaa jira lagu controli karo waxyaalaha lagu controli karo waxaa kamid ah haddii aad cunto fiican cuntid oo healthy ah oo aan junk food ka ahayn cuntooyinka la soo biceeyay ahayn ee wax dabiici ah sida fruitka vegetable-ka whole grain-ka aad cuntid baa lagu controli karaa waxaad kaloo ku controli karaa adigoo weight-kaaga loose gareeya oo exercise gareeya 5 to 10% haddii aad loose gareysid sonkortaada hoos bay u dhacaysaa waad ku controli kartaa waxaad kaloo ku controli karaa exercise haddaad exercise gareysidna waad ku controli karaa haddii aad dawooyina waa lagu controli karaa laakiin cuntada exercise-ka weight loss-ka kuwaasaa ka fiican dawada xitaa controlka ahaanteeda kuwaasaa ka fiican kana caafimaad badan dawada laakiin haddaa ka fursan weyd oo wax walba ku anfici waayaan dawaduna iyaduna waa lagu controli karaa haye symptomsku oo diabetic ama sonkortu slowly bay qofka usoo galaan ama uu ku dareemaa symptomska maxaa kamid ah oo aad isku dareemaysa in aad sonkor qabtid symptomska waxaa kamid ah iyadoo haraadku kugu bato waad haraadan tahay yani kuleel ma jiro hadday doono ma aad lugaynin laakiin haraad baad dareentay waxaad dareentay kaadi badan inaad kaadshaysid oo aadan ceshin karayn oo degdeg ah inaad heshay waxaad kaleeto isku aragtay in weight-kaaga hoos u dhacayo adigoo aan ugu talagelay inaad weight-ka iska ridid baa weight-kaaga hoos u dhacaya waxaad dareemaysaa fatigue which is inaad daalan tahay mar walba daalan tahay oo energy kaa hooseeyo baad dareemaysaa waxaad isku aragtay indhihii oo kaa walacwalacle oo aadan wax fiican ka arkaynin blurry vision ba Englishka lagu dhahaa weak baad isku aragtay fatigue baad isku aragtay trust baad isku aragtay adigoo haraad badan baad isku aragtay increase urination baad isku aragtay waxaad kaleeto isku aragtay infection ba ama hoosta kaa galaya ama UTI wax la yiraahdo kugu dhacaysa oo ama nimanka naagaha ahaadeen infectionkii baa kugu dhacayo hadii meel infection ka galo xitaa ma bogsanaysid nabar haduu meel kaaga dhaco ma bogsanaysid fungus wax la yiraahdo baa lugaha kaa galaya yani boog hadda yar ku gaadho maba ku dawoobaysaba waxaad kaleeto ku dareemaysaa dark skin baad qoortaada ku arkaysaa skinka qoortaada madmadoobaanaya waxa kaleeto madmadoobaanaya meelaha oo army bidka la dhaho oo meelahan oo kaleeto ah baa madoobaanaya dark bay noqonayaan si aadan isku aqoon baad waxaad ku arkaysaa madow baad ku arkaysaa qoortaada sida naagaha uur kala qaarkood ay ka soo baxdo baad qoortaada waxaad ku arkaysaa inay madoobaatay marka waxaad leedahay inta haddaa isku aragtid oo aad isku aragtay haraadkii inuu kugu batay oo aad isku aragtay kaadidii inay kugu badatay oo aad isku aragtid in fatigue kugu batay oo daalka kugu batay oo aad isku aragtid madmadowga haddaad isku aragtid oo infection kugu batay oo indhihii aad wilic ka leeyihiin oo si fiican aadan u fogsi garayn ama wax uga arkaynin dhakhtarkaaga la kulm una sheeg inaad symptomska isku aragtay because waxa lagu yaqaanaa sonkorta هي maxaa koos gareeya weeye sonkorta
sonkorta waxaa koos gareeya in bankreaskaagi ayaan sonkor fiican soo daynaynin. bankreasku muxuu yahay? bankreasku waxa weeye qanjir ku yaala stomach ku yaala calooshu ku yaala bankreas baa dhahay stomach ku yaala. bankreaskaas enaf sonkora ma soo daynay waa haddaa qof weyn tahay. haye maxaa u koos gareynaya inuusan sonkor weyn uusan soo daynin? maxaa koos gareeya? waxaa koos gareeya genetic environment or genetic factor or the environment. qof weyn haddaa tahay oo weliba aadan hore u qabi jirin waxaa kugu koos gareynaya in bankreaskaagu uu sonkorta insulinta soo dayn waayo ama insulin ka imaan weydo oo sonkorta controli waayo. waxaa koos garaysa inaad overweight tahay ama aad dhaxaltooyo u leedahay bankreaska waxa kaa haleynaya oo gene ay ka imaatay. laakiin caruurta midda ku dhacda sonkorta ku dhacda bankreaska dhan baa damage garoobay maba soo daynayaba insulin maba soo daynayaba. yani insulinku muxuu yahay? insulinku waa hormoon. insulinku markuu kor u kaco sonkorta hoos bay u dhacdaa. markii insulinka kor u kacona markii insulinka kor u kaco sonkorta hoos u kacaysa. markii sonkortaada hoos u dhacaysa insulinkaada hoos buu jiraa. so jirkeena markii insulintu ku badato markii sonkorta ku badato bankreaska wuxuu soo daayaa insulin uu leeyahay sonkortii baa igu badatay kala dir. sonkorta xagee aadaysa markii insulintu soo gasho jirka? bankreaska wuxuu soo daynayaa hormone insulin la yiraahdo. blood systemku ku soo daynayaa. blood systemka markuu ku soo daayo sonkortii way cararaysaa waxay aadaysaa salkay aadaysaa. sonkorta sideen ahaanba maxaan u isticmaalaa? sonkorta sideen ahaanba waxaan u isticmaalaa energy inaynu masalada ku dhisano inaynu ku shaqaysano inaynu cellskeena ay cells cusub markaan tissue cusub markaanu samaynayno baynu ku build garaysanaa. sonkorta badanaaba waxaa lagu keed gareeyaa liverka. jirku markuu caafimaad yahay kuma soo daayo blood systemka kuma soo daayo liverka ku keed gareeya. cuntaad cuntay cuntada wixii aad masalada ku dhisanaysid ama aad selka masalada waxaan ka wada muruqyada waxaad ku dhisanaysid ama tissuega ma Soomaaliga wax lagu dhaho ma garanayo laakiin waxa laga wada adiga unugyada jirka markaad ku dhisanaysid wixii aadan u baahnayn inaad jirkaas isticmaalo ama energy u isticmaalo ama jirka inuu ku dhisto muruqyo ku dhisto ama masalo ku dhisto uusan u isticmaalaynin liverka lagu kaydiyaa. laakiin jirka blood sugar iska wareegayso tiro badan ma joogto. marka maxaa koos gareeya inay regulationkaas socdo? insulinta waxay diraysaa sonkorta salkay u diraysaa. waxay leedahay salkow shaqadii aad ku isticmaali jireen ku isticmaala. marka saas ay u isticmaalaysaa. laakiin haddii bankreaskii halaabo oo sonkortii bankreaska halaabo oo insulintii la soo diri waayo hadda sonkorta waxay hoganaysaa dhiigay ku hoganaysaa. dhiigga markay ku hogatana nerve ay ka damage galinaysaa maskaxda ka damage galinaysaa. markaas cudurku bilowda. insulintu markay hoos u dhacdo baa cudurku bilowda. ama waxaad cuntay sonkor xadka ka badan baad cuntay. insulinta jirka insaanka sameynayo ka badan baad cuntay. yani cunto badan oo sonkor leh baad cuntay. marka bankreaska wuxuu leeyahay cell beresel la dhaho. bereselkaas baa insulintu ku kaysan tahay oo soo daaya. bereselkaasa badanaaba caruurta ka halaysan sonkorta ku dhacdo. laakiin dadka waaweyn wuu soo daynayaa laakiin waa daciif. sonkorta wuu soo daynayaa daciif. ciriga madowga tahay ciriga calibaysteynka tahay ciriga maxaan ku raahdaa Mexicaanka oo Latin Americaanka tahay
saddexda cirqi baa ugu badan dadka sonkorta qaba markii loo compare gareeyo dadka cadaanka ah. waxaa kaleeto risk factorska ka mid ah inaad ka weyn tahay 45, inaad ka weyn tahay oo inaad 45 ka weyn tahay sanadka. so waxaa age ka cause gareeya, weight ka cause gareeya, active inaadan ahayn baa cause gareeya, exercise garanayn, family ga cause gareeya, cirqiga ka soo jeedid baa cause gareeya, age kaaga cause gareeya. age ku muxuu u cause gareynayaa sonkorta marka hadda age ka qofku markuu 45 ka weynaado badanaaba orodkii iyo in sport ka qayb galo iyo in ordo iyo in ciyaaro iyo waxaas oo dhan baa ku yaraanaysa. markii wixii kugu yaraado aad meel fadhididna hadda wixii baa ku sonkortii baa ku kaydsamaysa, cunto baad bilaabaysaa. waxaa kaleeto kugu badanaya in masaladaadii ay yaraadaan. so active kiina waa kugu yaraanaya iyo orodkii, masaladiina way kaa yaraanayaan markaa weynaatid. sidii aad markii aad yaray masalo u lahayd uma yeehanaysa. marka inaad masaladiisa usoo dhisatid waa inaad baruurtana waa inaad yaraysid, masaladana waa inaad kor usoo qaadid. marka maxaad ku samayn kadhaa saas haddaa xitaa weyn tahay inaad exercise garaysid baad ku samayn kadhaa. haye waxaa kaleeto oo risk factorka ka mid ah haddii markaad isjeegaraysid sonkortaadu ay hay tahay, yani sonkor ma qabtid laakiin marmar qaarka ka mid ah baa sonkortaadu kor u kacdaa adigoo aan sonkor lagu sheegay adoon sonkor qabinin, jirkaaga u dulqaadan waayo haddaa keeg cuntid oo kaleeto korkor bay aadaan marmar sonkortaadu marka lagu sheego. hadda sonkor ma qabtid baa lagu hadhow sonkor baa lagaa helay, yani markaad sii weynaatid sonkor baa hadhow lagaa helayaa. haddii markaad uurka yeelatid oo lagu baaro sonkor lagaa helo, laakiin markaad uurka dhigtid oo cumushid ay sonkortii kaa baaba'do, markaasna hadhowto sonkor baad khatar u tahay. markaad weynaatid sonkor baad khatar u tahay oo riskigaagay kor u qaadaysaa. haddii aad overweight tahay saan usoo sheegnay iyadana khatar baa u tahay. waxaad kaleeto khatar ugu tahay wax la yiraahdo polycystic ovary syndrome, cudur la yiraahdo. haddaad qabtidna khatar baa u tahay. cudurkaasi overweight buu kaa dhigayaa, timo badan baa kaa soo baxay, waa cudur dadka ku dhaca weeye. hormoono badan buu qofka ku siyaadiyaa, oo kuu koos gareynaya inaad sonkorta kugu badato. kuwaasi waa risk factorski. complicationka maxaa ka mid ah? sonkorta badani maxay kuu koos gareynaysaa weeye. waxay kuu koos gareynaysaa sida hadayta uga hadlayba, infectionka kugu badanaya, funguska kugu badanaya, jirkaaga macaan buu noqonayaa. markaasa cudurkaas bacteriada waxay rabtaa inay ku cunto. waagi horeeto oo aan testiga caadiga jirin oo dunyada ay hormaray waxa la yiraahdo qofka inta dhiiggiisa meel halkaas ka laga darooriyo baa la dhadhamin jiraa la yiraahdo. hadda lama dhadhamin karo because cudurro badan baa dadku qabaan laga qaaday, AIDS-ka ka mid ah. lama ogola in dhiiggiisa la dhadhasho iyo cudurro kale tana waa mamnuuc in la dhadhamiyo. laakiin waayadii horeeto ama dhiiggiisa la dhadhamin jiray ama kaadidiisa la dhadhamin jiray, midna hadda lama ogola. cudur baad ka qaadaysaa haddaa dhadhamisid. xataa haddaa adiga tahay oo kan cudurka qaba tahay lama ogola hadda. waxaa kaleeto ay kuu kalifaysaa sonkortii badnayd inay wadnaha kaa fariisiso oo wadnuhu sonkor uma dulqaadan karo. dhiig baa loogu talagalay, sonkor ma tabar yani wuu ku halaabayaa. fasalada jirka tuubooyinka dhiigu qaado iyaguna way kaa halaabayaan, sonkortii baa halaynaysaa, way damage garoobayaan. nervous systemka baa kaa damage garoobaya. nervous systemku inuu kaa damage garoobay maxaad ku dareemaysaa? kaba soo sonkor iskama baadi, meel baadiyaa baaba joogtaa, adiga iskama warqabtid. waxaad kaleeto dareemaysaa numbness, dareen ma laha farahaagu, dareenkii baa kaasoo yaraanaya lugahaaga ama jirkaaga. numbnigu tingling, yani xasaasiyad baad dareemaysaa oo allah maxay tahay tingling-kani,
يعني waxaan jircadan iyo waxaan maxay yihiin wuxuu ka soo bilaabnaa wuxuu ka soo bilaabay damage-kaasi nerve damage-ku faruhu ka soo bilaabmaa korbu usoo kaca ilaa iyo kor soo gaaro wuxuu ka soo bilaabmaya tip of your feet your toes to all of your body buu kor usoo aadayaa marka farihii baad waxaad ka dareemaysaa inay naam ku yihiin lugaha faruhu inay naam ku yihiin pain baad ka dareemaysaa tingling baad ka dareemaysaa waxaad kaleeto wuxuu kaleeto sameeyaa neerfaha calooshaada baa damage garoobaya inside-ka calooshaada baa damage garoobaya neerfaha ku jira muxuu ku kalifayaa marka haddii neerfihii caloosha ku jiray ay damage garoobaan wuxuu ku kalifayaa inaad matagtid inaad naashiya yani wiswis matag shuban oo diarrhea ah wuxuu ku kalifaya oo kale xaarku inuu kugu dhago qofba siba u noqonaya laakiin marmar baa xaar kugu dhagaya marmar baa diarrhea kugu dhacaysaa waxaan ka wada shuban kugu dhacaya marmar baad matagaysaa marmar baad wiswisaysaa damage-ka stomach-gaaga baa ku kalifaya in waxaasoo kaleeto kugu dhacaan because neerfaha calooshaada ku jira baa damage garoobay oo sonkortii damage garaysay waxay kaleeto sonkorta kugu kalifaysaa inay kaliyahaaga damage garayso because sonkortii baa tuubooyinkaas dhex maraya sonkorta waxay kugu kalifaysaa kidney damage oo aan laga baskoon karinin mar haddii kidney damage kugu dhaco oo end of stage aad noqotid kama badbaadaysid only waxaad ku noolaanaysaaba because kaliya waa kaa damage garay jirkaaga wuxuu qaban jiro kaleeto ma qabanayo waxaad kaliya oo ku noolaan karaysaa in kaliyaha lagaa bedelo ama dialysis kugu socdaan buu ku kalifayaa hadda adigoo cunug yeeraysa haddii sonkor kugu dhacdo oo sonkortii aadan regulate garayn oo marna kor u kacdo ama qof weyn ba ahaatidi sonkorta mar kor u kacdo mar hoos u kacdo oo kaliya kaa damage garowdo intaa sonkortii aad u dhiman kaliya farisigii baaba u dhigamanaysaa iyadana waxay kaleeto kugu kalifaysaa sonkortu oo complication-keeda ka mid ah ayga indhaha inay kaa damage garayso neerfihiisa ridnada wax ridna la yiraahdo indhaha ku jira bay damage garaysaa markay damage garayso maxay kugu kalifaysaa blindness bay kugu kalifaysaa blue vision waanay kulahaa marka isku gareemaysa waxaad dareemaysaa in indhihii ay daciifeen xitaa adoo yar baa waxaad dareemaysaa indhihii inay kaa daciifeen ama si fiican ayaan wax u qabanaynin oo ciro kaaga jirto maxaa kaleeto kaa damage garaynayaa wuxuu kaleeto kaa damage hearing damage bay leedahay dhagihii baadan wax ka maqlaynin dhagihii bay kaa damage garaynaysaa dhagihii baa kaa daciifaya waxaad noqonaysaa qof dhagoolha baad noqonaysaa waxaa kaleeto isku arkaysaa memory-gii baa kaa daciifaya because sonkor baa maskaxdii kaaga buuxsantay ilaahay sonkor maskaxda nagama buuxiye sonkor baa maskaxdii kaa buuxsantay markaas xusuusi baa kaa yaraanaysa alzheimer baa kugu dhacaya adigii oo dhan baa confuse noqonaya qof waalan camal baad noqonaysaa xusuusi baa kaaga yaraanaysa qof waxaad dhimasho qabaad noqonaysaa waxaad kaleeto isku arkaysaa xanaaq badan irritation inaadan dulqaad lahayn inaad xanaaqaysa baad isku arkaysaa inaad wax walba dhibsanaysid baad isku arkaysaa waxaa marka maxaa lagu controlaa maxaad ku controlaysa maxaa sonkortii isaga ilaalin preventionku muxuu yahay oo aad sonkortii inay kugu dhacdo aad isaga celinaysaa waxaad isaga ilaalinaysaa sonkorta inaad cuntid healthy foodka maxaa kamid aad cunaysid waa intaa sonkorta kugu dhicina garo hadday sonkorta kugu dhacdana waad u fiican tahay waxyaalahaani laakiin intaan sonkorta kugu dhicin maxaad samayn kadhaa oo maantadaa la jooga aad samayn kadhaa waxaad cuni kadhaa cunto fruudkaad badsanaysaa vegetablecaad badsanaysaa whole grainka waxa la dhaho sida badarka sida digirta sida masagada miyaa u taqaanaan sida sareenka cuntada fiberka ku jiro oo saxarada kaa keenaysa baad badsanaysaa waxaad kaleeto samaynaysaa waad exercise garaynaysaa haddaad qof dhalinyarada tahay orod
trail meal baad qaadanaysaa waad ordaysaa isciijinaysaa mashiinka lasoo dhufto muruqyada lagu geegsada baad isku samaysaa muruqyada geegsanaysaa maxaan ku dhahaa biraad qaadaysaa waxa haddii active-ka aad yani exercise-ka aad sameynaysid hadduu yahay mid tiro badan oo yani nin qof strong yahay oo hard u yahay difficult u yahay waxaa loogu talagalay maalintiiba 15 to 30 minutes 15 minutes to 30 minutes inaad samaysid waa haddii uu yahay sida biraha qaadka ama orodka tirada badan oo aad u ordaysid isxiijinaysa yahay laakiin haddii aad socdaal ama dabaal ama baaskiil aad qaadanaysid oo yani aan ku xiijinaynin laakiin aad dareemaysid yahayna waxaa loogu talagalay inaad 30 daqiiqo to 60 daqiiqo aad samaysid maalintii ugu yaraan 3 maalmood asbuuci iyo wax ka badan maalin walba waa samayn kartaa haye weightkaaga waa inaad loosgaraysid oo aad loosgaraysid haddaaba sonkor isaga shakidid ama sonkor lagu soo sheego ama aad sida alena weightkaaga waa kordhay 5% to 10% waa inaad dhintid weightkaaga si sonkortaadu ay hoos ugu dhacdo waxaad kaleeto oo samayn kartaa haddii sonkortii lagaa helay ama sonkor aad iska dareentay ama waalidkaa qaba ama walaalahaa qabaan waa inaad noloshaada motivate yourself aad tiraad allayla waa inaan meesha iska qaadaa waxaan sugayaa hadda waa dhibaato waa inaan meesha iska qaadaa maxaad samaynaysaa marka exercise baad samaynaysaa exercise-ku muxuu ku fiican yahay sonkorta kaliya xitaa maaha dhiigu kaa yaraynayaa energy-gaaga kor u qaadayaa low self esteem-kaaga kor u qaadayaa motivation-kaagu badinayaa haddii ay kugu dhib tahay inaad exercise garaysid oo ay dhib kugu tahay inaad maalin walba samaysid maxaad samaynaysaa group baad samaysanaysaa dumar haddaa islaan tahay dumar baad samaysanaysaa saaxiibada ama gabar tahayba haddaa gabar tahay gabdha age-kaaga baad samaysanaysaa haddaa wiilal tahay wiilal age-kaaga baad samaysanaysaa haddaa maamo tahay naakaalaya isla lugaynaa maanta naakaalaya bildankeenu wuxuu leeyahay xitaa meel qabobaa haddaa ku nooshay sida Maraykan oo kaleeto haddaa meel qabobaa ku nooshahay waxaad leedahay hoos gym bay leedahay kaalaya aan gym aadne walaalayaal aan israacno markaa dad badan aad isku xirtid oo kula aadaya meesha ama gymka hoose kula aadaya bildankaaga ha ahaato ama banaanka kula lugaynaya ha ahaatee waad iswacaysaan wacidaasi waxay kuu keenaysaa inay encourage karayso ka soo qaad maanta adigiiba yiri maanta anu ma lugayn kara iga tag aniga meelahaas ma ururdi kare mid baa ku soo wacaysa leedahay naa meesha ka soo kac meesha waa wada lugaynaynaay naa meesha ka soo kac maanta hoos baan aadaynaay kulligiin energy-gu idinkama wada dhacayo kulligiin ma wada mashquulaysaan mid walbo haddaa maanta energy haysatan kala wac waxaa tiraa naa heblaayo anigu hadda halkaasaan jooga aday naag haddaa tahay meesha isugu keen maanta is encourage gareeya bildankaaga dadka baro oo ama kula da-ah ama ha yaryaraada xitaa hadday rabaan xitaa haddaa qof yar tahay oo maamo aad aragtid mar walba rabta inay exercise garayso habar yar maanta waa exercise garaynaynaaye meesha isugu keen exercise ma rabta inaad wiil haddaa tahay oo gymka ciyaartid oo hoos aad oo gymka ciyaartid oo aad aragtid allayla odaygaani maantuu yimaadaa barri ma yimaado maantuu yimaadaa encourage karo waxaa teleefonkaaga isi waa kusoo wacay waxaan ku oranayaa war kaala iskeene isagana asxaan baa u samaysa adna ajar baad ka helaysaa waxaad leedahay kaala exercise-ka samee kaala isla lugayne kaala israacne adigana waxaad leedahay warniyow haddii aad igu aragta ayaamahan inaan dadka waaweyn kaliya ma dadka yaryar xitaa way wahsadaan waad encourage garaynaysa qofka yar waa encourage garaynaysa laftiisa waxaad leedahay war kaalayo maanta ila lugee oo aan israacno haddii aadan dadka kaleeto ka helaynin caruurtaada mid ka mid ah ama haddaad adigu caruurtii tahay waalidkaa mid ka mid ah oo kula nool waxaad tiraa warkaala maanta isla lugaynaynaay qof kastaba u fiican yahay lugayntu qof kastay u fiican tahay exercise-ku qof kastuu u fiican yahay cuntada caafimaadka ah is xusuusiya dhammaantiin
haye taasi waa professionkii iyo waxa aad isaga joojin la in sonkor kugu dhacdo stresska in iska yareysid iyaduna sonkorta ka yareynaysa exercise-ku isagana laftigiisa exercise-ka laftigiisa stress ku yareeya sonkortu yareeya blood pressure ku yareeya jirka caafimaadkiisu siyaadiya low self esteem-ka buu ka baabi'inaya marka exercise-ku waa wax aad u muhiim ah hadaa waxyaalahaas oo dhan ku baabi'in weydid dawooyin baa jira dhakhtarkaaga ku qoray waxa jira oral baa jira oo aad kaniin aad baa jira qaadanaysid insulin waa jira waa hadii khatartaadu ay caadi ayaan ahayn tani dhakhtarkaagu wuxuu kugu la soo talinayaa in mar walba iska jeegaraysid sonkorta maxaa lagu testi gareeyaa marka sidee lagu gartaa in sonkor aad qabtid oo lagu diagnose gareeyaa sonkorta waxaa lagu testi gareeyaa dhiig in laga qaado oo dhiigaaga la jeegareeyo 3 bilood ama 2 bilood oo la soo dhaafay ma hadda 2 bilood oo la soo dhaafay dhiigaaga sonkortiisu sidee ahayd because waxa laga yaabaa in sonkortaadu marna kor u kacdo marna hoos u kacdo dhiigaas lagu ogaanayaa in sonkortaadu ay sareysay ama hooseysay ama normal ahayd 3 bilood oo la soo dhaafay 2 bilood ilaa 3 bilood oo soo dhaafay buu sheegayaa waxaana sheegaya hemoglobin-kaaga hemoglobin-kaaga la test gareynayaa sonkor baa laga helayaa intay soo martay because dhiigaagu baa sheegaya waxa kale oo lagu test gareeyaa random in laga qaado oo just lagu test gareeyo adigoo aan lagu fiirinayn marka cuntada cuntay ama aadan cuninin ahayn oo mar caadi inta just lagu soo qabto dhakhtarka oo kala tagtay just uu ku taray gareeyay marka aan ku laabto tii oo ahayd balaarka midda normalka waa inay ahaato markii balaarka laga jeegareeyo 2 bilood oo la soo dhaafay waxaana magaceeda la dhahaa AIC A1C baa la dhahaa A1C-gaas normalka markuu yahay waa inuu ahaado 5.7% waa inuu ahaadaa waa markuu normalka yahay laakiin markuu ka sareeyo normalka hadduu noqdo 6.5% hadduu noqdo sonkor baad qabtaa weeye bilihii la soo dhaafay sonkortaadu haybay ahayd waxa kale oo lagu test gareey randomka waa naga sheegnay marka dhakhtarka tagtay hadduu dhiig ka qaado oo ay ka sareyso 200 iyo waxa ka sareysa haday noqoto sonkortaadu iyadoo loo fiirinay marka cunto iyo marka cunto iyadoo loo fiirinaynin random la dhaho 200 iyo waxa ka sareysa haday noqoto iyadana waa sonkor bay sheegaysaa fasting mid la yiraahdo oo aad fast gareynaysid iyadana waa la jeegareeyaa iyadana uu ka qaadayaa dhakhtarku haday ka yadhahay 100 because fasting glucose-ku ama sonkorta fasting-ka marka la yiraahdo waa inay u dhaxaysaa because sonkorta lama rabo inay high noqotana lama rabo inay low noqotana lama rabo sonkorta waxa la rabaa normal inay tahay sonkorta fasting-ka glucose-ka mid la dhaho waa inay ahaataa 100 waa inay ahaataa 100 iyo 125 waa inay u dhaxaysaa 100 ilaa 125 waa inay u dhaxaysaa markay normalka tahay laakiin haday ka hooseyso 100 micnaheedu waxa weeye sonkor baad qabtaa midda kale dhakhtarku wuxuu sameynayaa oral tolerance test wax la dhaho sonkor buu ku cabsiinayaa markuu sonkor ku cabsiiyana 2 saac ka bacdi wuxuu ka jeegareynaya dhiigaagu markuu jeegareeyo hadii sonkortaadu ka sareyso 200 daamina jirkaagu ma regulate gareynayo jirkaagu ma balance gareynayo sonkorta marna kor bay u kacaysaa marna hoos bay u kacaysaa daamina sonkor baad qabtaa haye sonkorta maxaa lagu tiriid gareynayaa sonkor baad qabtaa sonkor baa laga helay maxaa lagu tiriid gareynayaa maxaa lagu daweynayaa sonkorta waxaa lagu daweynayaa weight loss-ka waa lagu daweeyaa waanigi soo sheegay 5 to 10% of your weight waa inaad lose gareysid sida sonkortaada u daweysid waa inaad exercise sida horeba uga soo hadlay sida aad sonkortaada u daweysid waa inaad exercise gareysid waa inaad also insulin baa lagu daweeyaa haddana
insulin waa lagu daweeyaa sonkortaada dhakhtarku hadduu u dareemo in aad u baahan tahay inaad insulin qaadatid insulin baad ku daweynaysaa insulin baa lagu daweeyaa oral medication waa lagu daweeyaa waxaa kaleeto lagu daweeyaa sonkortaada inaad mar walba jeegaraysid si aad u ogaatid inaad insulin u baahan tahay khatar tahay oo high aadayso too much high aadayso ama too much low aadayso iyadana waad inaad monitor samaysid haye sonkortaadu hadday low tahay maxaad ku dareemaysaa sonkortaadu hadday low tahay waxaad ku dareemaysaa waad dididaysaa waxaan ka wadaa waad sheegaraynaysaa waadna dididaysaa waad sheegaraynaysaa waad dididaysaa gaajo badan baa kugu badanaysa gaaja kugu badanaysa because sonkortiba hoos kaaga dhacday jirkii marka wuxuu rabaa wuxuu cuno si ay salal unugyadu si ay waxay cunaan u helaan wuxuu rabaa inuu cuno because sonkortiba hoos u dhacday irritation baad isku dareemaysaa waad xanaaqaysaa dulqaadka kaa yaraanaya because sonkortiba hoos kaaga dhacday waxaad kaleeto dareemaysaa dizzy baad dareemaysaa waad wareeraysaa confused baad dareemaysaa waad confused baad noqonaysaa because sonkorti brainka sonkorteediba hoos u dhacday taas waa confused-ka kuugu dhacaya oo aad dizzy-gana wareerkana u dareemaysaa waxaad kaleeto dareemaysaa wadnaha ku garaacmaya astaamahaas weeye waxa lagu dareemaa in sonkorti kaaya dhahay maxaad samaynaysaa marka haddii aad dareentay astaamahaas inay kugu dhaceen oo sonkorti kaa yaraatay intaadan suuxin ilaa waa suuxaysa koomaa laga galaysaa haddaasaa noqotide waxaad samaynaysaa fruit juice baa cabay sida orange juiceka waxaan ka wadaa casiir ama juice casiir ama juice waxa u taqaanid yani fruitka kan laga soo miiray fruitka dhacaanka laga soo miiray oo juiceka ah baad cabaysaa fruit juice grape baa jira tufaax mid laga soo miiray baa jira yani wixii juice oo khudaarta laga soo miiray biyaha khudaarta laga soo miiray baad cabaysaa ama sonkor baad cunaysaa koob sonkor aad cunaysaa waa markii sonkortaada hoos u dhacdo oo aad garatay inaad sheegaraynaysa intaadan kooma gelinin waad cunaysaa sonkortaasaad cunaysaa waxaad kaleeto cunaysaa macmacaanka chocolate-ka iyo waxaas baad cunaysaa si aad sonkortaada kor ugu soo qaadid waxaad kaleeto cabaysaa soodhada bibsiga oo kaleeto iyo kokolada oo kaleeto kuwa aan diet ahayn dietka lama ogola mid aan diet ahayn baad cabaysaa after 15 minutes-na waa isjeegaraynaysaa sonkortaadii baad isjeegaraynaysaa dhakhtarkana waad u sheegaysaa in sonkortaadu ay hoos u dhacdo istaamahaasi kugu dhaceen ciladahaas aad isku aragtay haye high blood sugar-ka maxaa lagu yaqaanaa oo aad ku dareemaysaa high blood sugar-ka waxaa lagu yaqaanaa in kaadidii kaa badato aad kaadshaysa because jirkaagii sonkortii waxay kaa galaysaa kaadahaystay kaa galaysaa marka uma dulqaadan kadhid waxaa rabtaa inaad kaadid mideeda kaleto sonkortu markay kugu badan tahay kaadahaysta infection baa dadka ka gala because fungus iyo infection iyo waxaas afkana way kaa galayaan sankay kaa galayaan kaadahaysta iyo meesha hoose bay kaa galayaan because sonkortaa kugu badan waxaa kaleeto kugu badan haraadkaa kugu badanaya because sonkor baa kugu badan sonkortu waa sida cusbadoo kaleeto wey haraad baad dareemaysaa jirkaagiiba biyihii ka yaraanayaan wixii biyihii iyo marka waxa qalalan iyo waxa qoyana markii la isku daro hadda sonkor iyo hadda isku dadid biyo oo biyuhu badan sonkortiiba cabaya sonkorta marka biyaha ka cabaysa haraad baad marka dareemaysaa daray mouth baad dareemaysaa inaad qalalantahay jirkaagu qalalan yahay baad dareemaysaa kaadidii baa kugu badanaysaa marka waxyaalaha dareentid waa inaad sida u manage gareyn lahayd waa inaad samaysid waxyaalaha lagu manage gareeyo insulin baa lagu manage gareeyaa inaad sonkortaada aad hoos ugu ridid mideeda kaleto waa inaa ad aad soo xiratid qoorta kusoo xiratid aad ku qoraysid badanaa dhaqaatiirta dadka siisa dhakhtarkaagaa weydiisanaysa waxaad leedahay waxaan rabaa silsilada ay ku qoranta inaan sonkor qabo because haddaa kooma gashid dadkii dhaqaatiirta ma garanayaan inaad sonkor qabtid in karto qofkan waa suuxay bay leeyihin wax kaleetay kaa baray say kor kaaga baaraan waa inaad calaamad haysatid lagu gorto inaad sonkor qabtid sanad walba waa inaad indhaha iska soo baartid sanad walba waa inaad sanadkiiba
hal mar oo ka badan waa inaad ilkahaaga waa inaad caadaysid waa inaad sonkorta ka yaraysid because ilkaha kaa daadanaya indhaha waa in lagaa soo baaro feedkaaga ama lugahaaga waa inaad jeegaraysid waa inaad kabo daboolan oo aan kugu dhaganayn oo ku daboolaya faraha laana faraha haday ka damage garoomaan ama wax ku dhacaan cidiyahaaga infection baa ka galaya waa inaad lugahaaga dhowratid oo kaba daboolan aad xiratid waa inaad mar walba jeegaraysid si aad ula socotid oo hadii infection ka galo aad treat garaysid waa inaad cholesterolkaaga hoos u dhigtid waa inaad blood pressure-kaaga hoos u dhigtid waa inaad tubaakada iyo waxyaalaha iyaguna cudurada ku kalifaysa tubaakada alcoholka daraagiska waxaas oo dhan waa inaad iska yaraysid iyagana iska yaraysid dhakhtarkaagana waa inaad la xiriirtid symptomska marka haday badan yihiin mar walba dhakhtarkaaga u tagaysaa oo ka helayaba sonkortaba hadii ay badan yihiin oo dareemo dhakhtarku inaad u baahan tahay insulin waa inaad iska jeegaraysid intaada cuntada cuninin waa inaad iska jeegaysid intaadan seexanin dhakhtarku wuu kuu soo qorayaa laakiin schedule baa jira aad ku soconaysid mideeda kaleeto infection markuu aad dareentid ama boog dareentid waa inaad ka fargaraysid waa inaad dhakhtarka u sheegtid marka sonkortu waa wax xun hadday indhihii kaa fariisanayso keliyihii kaa fariisanayso maskaxdii kaa fariisanayso beerkii kaa fariisanayso wadnihii kaa fariisanayso meel walba kaa fariisanayso sonkortu waa waxa ugu khatarsan cudurada dhaca cudurada ugu weyn bay ka mid tahay marka please exercise garee dhakhtarkaaga la soco iskantarool caafimaadkaaga ku dadaal macluumaadkan meeshaad ka heli lahaydeen ama informationkan meesha ka heli lahaydeen hoos baan kusoo qorayaa meeshaad ka heli lahaydeen saa akhrisan ingiriis buu ku qoran yahay badanaaba laakiin hoos baan kusoo qorayaa waad mahadsan tahay please subscribe share like السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haddaad ku yeeshina qabtaan hoos ku soo qora